jacaylka ka sikaani sirid ma soconaysaa la yiri siriiqda ka baxbaani sirid maba siimaysaa la yiri ku sayri badaan sirido sidaa maaha la yiri jacaylka ka sikaani sirid ma soconaysaa la yiri siriiqda ka baxbaani sirid maba siimaysaa la yiri jacaylku waa dareen ku dhex beerma nolol kasta oo dunidan ku nool waana mid u dhexeeya farxad ama murugo qaar buu wakhtigu saaciday oo jacaylka u samaaday halka kuwa kalena uu farxadda kala tegey qaar ayaa la gudgalay oo uu ka mid yahay macallinkii weynaa ee jacaylka ee cilmi boodhari maantana sheekadeenna waa la kulanka 65 sano jir 30 sano ka hor u waashay jacayl lagu qiyaamo awgeed wuxuuna 30 sano derbi u fadhiyaa cadaalad u helidda gabadhii jacaylka uga baxday maxamed cabdinuur oo ku magac dheer adeera waxa uu ahaa beerley ka hor inta uusan dhex dabaalanin muujadaha jacaylkan maanta waalay waxayna xiriir jacayl oo dhaba wada lahaayeen gabar ka mid ahayd dadka deegaanka Koban oo magaalada Kismaayo dhanka waqooyi ka xigta waxay ku ballameen xilligaasi guur wuxuuna go'aansaday in tacabkii beertiisa uga soo go'ay uu badnaa sisin uu u iibgeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka beecgeyntiisii kadib lacagtii dalga looga iibsaday ayuu gacday sidiisa xoogaa dahab iyo dhar uga soo iibiyay inta kalena waxa uu ku soo riday juwaan si uu uga doonto gabadha waana sooriyadii reerka balse intii uu maqnaa ayay tala faraha ka baxday kadib markii gabadhii uu jeclaa ay ninka la raacday lana aqal gashay wuxuuna hadda oo 30 sano qisadiisa ay ka soo wareegatay weli garabka ku sidaa juwaankii uu ku waday lacagtii sooriyada ahayd balse hadda uusan isaga ogeyn in qashin loogu buuxshay maxamed tala ayaa ku ciirtay wuuna rumaysan waayay waxa gadaashiisii dhacay mahad cabdi shaqlane waa saaxiibkii adeera waana qofkii ugu horreeyay ee adeera la wadaagay weedha naxdinta ku reebtay kadib markii uu tuulada ku soo laabtay qisadiisa ayuuna TV-ga Universal uga warramay ani asagna waxaan ahayn nabadna walaal ah ehel ah oo isku deegaan ah gabadh buu doonay gabadhu markuu doonay kadib ilaan gabadhii hanti la'aan ma suurto galayso meel dhashay waa ma la yiraahdo aaday beer buu ka tabcaday alxamdulillaah rabbil caalamiin beerta ilaahay baa u bixiyay sinti uu ka helay xamar uu qaatay kadib uu soo iibsaday markuu soo iibsaday ilaan markaas lacag dollar ma jirin FC ma jirin lacag boqol ay ahayd jawaanu ka soo buuxiyay lacagtii gaari uu soo raacay kawan uu ku soo degay wixii asoo dusha u soo saaray garabka uu kawan la imaaday kawan markuu imaaday kow aniga asaga iska hor imaanay waxaan u sheegay gabadha in la guursaday oo nin ay u degan tahay ninkuu isku naxay nafkayga waxaan yiraahday bal maxaan iyo ninka ugu sheegtay meeshii ninka loogama dambeeynin arrintaas aawad jacaylkii gabadha ka wada dhaxeeyay ayuuna u waashay maadaama la yiraahdo gabadhi waa la guursaday asaga hantidii uu ku guursanay gacanta uu ku hay filwaay la noqotay naxdin iyo jahwareer jacayl kadib adeera waxa ku adkaatay ku noolaanshiyaha tuuladii uu ku waayay jacaylkiisa wuxuuna soo aaday magaalada Kismaayo oo xilligaasi ku taalay maxkamaddii gobolka Jubbada Hoose waxaana maxkamaddan ay noqotay mid xirmatay isaga oo aan maxamed weli go'aan ka helin waana halka uu weli 30 sano hor fadhiyo si uu cadaalad kaga helo gabadhii jacaylka ku qiyaantay balse waa riyo aan marnaba si ku rumoobayn maadaama aan war iyo wacaal toona laga hayn gabadhii jacaylka darteeda loogu waashay hadda qashin way waxa uu saaray asaga lacagtii u maleynaa gabadh uu ku guursan rabay yarad isuulidu iskaga bixin lahaay Kismaayo u imaaday cadaalad inuu helo u imaaday cadaaladii intuu iska dawareegay maxkamadda ku budbudtay dawladda Soomaaliya dhacday ilaa hadda wuxuu u fadhiyaa inuu cadaalad u helo cadaalad Ilaahay u sahlo cadaalad maxay tahay yani cadaalad waxay tahay gabadhii hadda gabadh mid nin guursaday maanta u kooba ahan hadda nin isaga nin iska waasho way gabadhu u maleynaa inuu helay isaga qalaa hal cadaalad sugo way halkaas u fadhiya hal dagtiisu u fadhiyo oo aytiinkiisu ku baaba'ay هذا ورا المرشح ورا قيره جهز ورا قير الله كبير adeera inkastoo jahwareer jacayl galay haddana cidna ma wax yeelo hadalkiisana ma dhaafsan rajo xag alle iyo u ducaynta dadka wuxuuna ku hidaa jidadka magaalada Kismaayo welina ma helin jacayl